xiisad xooggan ayaa ka taagan magaalada Hargeysa taasi oo ka dhalatay meydadka saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka madaxtooyada oo laga helay meel aan aad uga dheereen madaxtooyada maamulkaasi Somaliland. Tan iyo inta la doortay madaxweynaha maamulkaasi Somaliland Ciro ayaa waxaa dhashay qulqulatooyin iyo weliba dilal qorshaysan oo ay geysanayaan cid aan la garanaynin. Madaxweynaha la doortay ayaa gebi ahaanba si weyn ay uga hor imaadeen inta badan shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa walow laga taageersan yahay gobollada iyo weliba deegaano fara badan oo ka tirsan maamulkaasi Somaliland. Arrintan ayaa gebi ahaanba daba joogto kadib markii kooxo si weyn u taageersanaa madaxweynihii hore ee maamulka Somaliland ay bilaabeen mudaharaadyo iyo weliba sidoo kaleeto goodis ay ku bilaabeen madaxweynaha cusub iyo nidaamkiisa. Xubnaha haatan magacaaban ee madaxweynuhu uu doortay ama markaasi uu igmaday inay la shaqeeyaan ayaa si weyn looga biyadiiday. Golaha wasiirada ayaa gebi ahaanba qayb ka ah kuwa markaasi ay ka dhasheen qulqulatooyinkan iyo weliba sidoo kaleeto arrimahan sababay in la laayo saraakiisha sarsare ee ka tirsan ciidanka maamulka Somaliland. Meydadka laga helay madaxtooyada aageeda ayaa kala ah wiil iyo gabadh kuwaasi oo laga helay gaari markaasi bakin ku jiray oo halkaasi loo maleeyay in gebi ahaanba lagu soo tuuray meydkooda. Labada sargaal ilaa iyo xilligan isbitaalku ma xaqiijin waxa sababay geeridooda in la toogtay iyo in la ciijiyey ama in si kaleeto loo dilay, balse waxay u badan tahay inay markaasi ka dambeeyaan tiimka haatan talada haya oo ayagu bilaabay inay markaasi meesha ka saaraan cid kasta oo la soo shaqaysay madaxweynihii hore ee maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Shacabka ayaa si weyn u kala qaybsan kadib doorashadii ka dhacday maamulka Somaliland, walow madaxweynaha haatan la doortay uu helay codadkii ugu badnaa abid doorashooyinka ka dhaca maamulkaasi Somaliland, balse waxay u muuqataa in tiimkii hore ama markaasi kooxihii hore ee la soo shaqeeyay madaxweynihii hore ee maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ay wadaan fawdo, iyadoo markaasina arrintan ay sababtay in madaxweynaha cusub uu haatan u jeedsaday sidii gebi ahaanba uu iskaga qaban lahaa kuwa haatan bilaabay inay shacabka kala geeyaan. Taasi ayaana sababtay baa la dhihi karaa geerida saraakiisha iyo weliba afduubka, iyadoo dad fara badan oo social media si weyn looga yaqaanay ay ku jiraan xabsiyada maamulkaasi Somaliland, kuwaasi oo ayagu lagu eedeeyey inay buunbuuninayaan wararka iyo weliba warbixinada la xidhiidha dhowrkii beri ee ugu dambeysay arrimihii ka taagnaa magaalada Hargeysa ee u dhexeeyay shacabka iyo weliba ciidamada. Somaliland weli waxay wadaa abaabul ciidan iyo weliba guluf colaadeed oo ay ku wado deegaanada SSC Khaatumo, balse haatan waxaad moodaa wixii laascaanood ay ka kacday wax la mid ah inay ka socoto magaalada Hargeysa, dilalka saraakiisha, haldoorka iyo weliba dadka caanka. Si kastaba xiisadda ayaad moodaa inay markaasi haatan isku bedelayso gacanka hadal, iyadoo qayr ka mid ah beelaha degan magaalada Hargeysa ay si weyn markaasi ugu kala qaybsan yihiin doorashada iyo xukunka madaxweynaha haatan talada haya ee Ciro oo markaasi loo maleynayay inuu aad uga wanaagsanaan doono madaxweynihii hore ee maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Guud ahaan daawadayaal, xiisadda ka taagan magaalada Hargeysa iyo meydadkaasi la helay iyo weliba waxa ay markaasi ka soo saaraan saraakiisha amniga ee maamulkaasi Somaliland qaybaha dambe ee wararkeena ayaan idinku soo gudbin doonaa. Tan iyo intaan midka kan xiga ku kulmi doonno waxaa idinka tagay sidaas iyo ammaane Allah.